kusimaha taliyaha qaybta 27aad gaashaanle sare Isaaq Cismaan Idriis ayaa maanta kormeeray faruumaha ay ciidamada xoogga dalka kaga sugan yihiin degmada Buula Burdo ee gobolka Hiiraan. Taliyaha ayaa ciidanka ka wareystay xaaladooda iyo sida ay ugu diyaarsan yihiin la dagaalanka kooxda Al-Shabaab. Wuxuuna ciidamada faray inay u diyaar garoobaan dagaal ka dhan ah kooxdaasi lagana sifeeyo deegaanada hoos yimaada degmada Buula Burdo ee gobolka Hiiraan. sidoo kale taliyaha ayaa ciidanka u sheegay in loo baahan yahay inay iska kaashadaan sidii kooxahan looga soo afjari lahaa deegaanada ay kaga sugan yihiin gobolka Hiiraan si looga hortago khataraha ay maleegayaan kuwaasi ay ku doonayaan inay ku bartilmaameedsadaan mas'uuliyiinta dawladda. Deegaano ka tirsan gobolka Hiiraan waxaa inta badan ka dhaca weeraro iyo qaraxyo la bartilmaameedsado mas'uuliyiinta maamulka iyo ciidanka dawladda, waxaana weerarkii u dambeeyay lala beegsaday kolonyo uu hogaaminayay gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeete Cismaan kaasi oo ka dhacay duleedka magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan.